gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa maanta soo kormeeray dhismaha waddo isku xiriirisa isgoosiyada Maanabool iyo afar darjiino oo maamulka gobolka Banaadir ku horanaa maalmihii ugu dambeeyay oo haddana marayso meel gabagaba ah. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa kormeerkan kadiska ah waxa uu gol lahaa inuu la socdo xaaladda dhismaha iyo sida ay shirkadda ay u dhisayso. waxaana markii uu kormeerku u sameeyay oo in muddo ku soo socda dhismaha laamiga waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dadweynaha ku ganacsada hareeraha wadada kuwaas uu kala sheekaystay sida ay u arkaan iyo haddii ay jiraan talooyin kale oo lagu horumarinayo dhismaha wadadan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale intii uu kormeerku ku guda jiray waxa uu dhan kale dib oogis uu ku sameeyay biyo mareen loo sameeyay hareeraha wadadan kuwaas oo biyaha ku soo qubaya waraha loogu talagalay in biyaha lagu keediyo. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish intii uu kormeerku ku guda jiray waxa uu la kulmay gudoomiyaasha degmooyinka Boondheere iyo Shibis kuwaas oo ka xog wareystay xaaladda guud ee dhismaha wadadan iyo kaalinta ay maamulka ay ku leeyihiin. waxa uu ka dalbaday in ay la socdaan badqabka dhismaha wadadan haddii lagu dhameeyo nadaafadoodana looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan dadweynaha ku nool degmooyinka Shibis iyo Boondheere. Ibraahim Xaaji Yuusuf warbaahinta codka caasimadda magaalada Muqdisho.